waxaa xogtii ugu soo gaaraysaa halkaa iyo dadkii deganeyd tawfiiq ee dabac iyo agoon lahayd ee surre oo gurmad halkaa iyo xeraale iyo laandheer gurmad u ah badhacdu waxay ku maahmaahdaa hombabaro libaax bay soo sidaa baashaan hombabarada la yidhaahdo badda dolphin baa u taqaanaa gaalada u taqaanaa markay raxan-raxanta u socoto badhacdu waxay dhaheen libaax baa daba socda waxaan ka wadaa hadalkaas afarta gaari ay ka soo dhaqaaqday tawfiiq horseedayaan qoraatan ka weyn oo qabiileed boqolaal galdogob taalla boqolaal jariiban taalla boqolaal gaalkacyo taalla boqolaal saaxa taalla boqolaal reer siyaad xuseen iyo ceeldheere iyo wagardhac iyo aan dagaalba ku jirin inaad soo gelisaan bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qunaa maanta waxaan ku dul istaagi doonaa qolaadna ka soo cusboonaatay laandheer oo u dhaxaysa xadka mareexaan iyo dir hal baan ka odhan doonaa sidoo kale ciidankii qaranka soomaaliya magaciisa watay ee lagu xasuuqay ceeldheerna hal baan ka odhan doonaa xasan ayax oo maydkii hal guuto ciidana u tuban tahay 61 shacab oo islaayay maydkooduna u yaallo oslo norway u duulay oo shir la yidhaahdo oslo forum la yidhaahdo aadayna hal baan ka odhan doonaa aan ku hormaro waxaan ku hormarayaa ciidanka qaranka magacooda sita ee maalin kasta birta laga aslayo ciidankaas argagixisada loo loogay dhalinyaradaas argagixisada loo loogay waa tacsiyeenayaa waxaan leeyahay ilaahay naxariista janna ha idin siiyo ilaahay naxariista janna ha idin siiyo waa idiin muuqataa ciidan saddexdii sarkaale xukuntay laba ka mida la bireeyey waa saraakiishii ciidankii maxaa ka haray hub waxay haysteen beebayaal tikniko diyaalka rasaas nooc kasta waxay gashay gacanta argagixisada ciidankani wuxuu ahaa ciidan dhul abgaal lagu waardiyeynayo ah weli ma aragteen dhul xawaadle al-shabaab soo weeraray oo beebayaal iyo ciidankii dowladda iyo tiknika iyo baro halamsanaya ma aragteen weli ma aragteen argagixiso soo weeraray meesha halkaas yaadiyaa la ku rooyahay galmudug iyo abargidir soo weeraray oo beebayaal iyo hubkii dowladda ay qanimaysan maya hubka dowladdu halkaa ma gaaraan hubka dowladdu waxay waardiyayaan keliya oo gacanta loo geliyaa abgaalka iyo deegaanadooda maalin kastana waxa la furanayo saraakiisha la furanayo la biraynayo waa abgaal hubka la qaadanayo wax laga qaadanayo waa abgaal madaxweynuhu wax allaale wax hub lahaa qaranka loo keenayo ama deeq lagu qaatay ama tugs lagu qaatay abgaal xeryahooda u geeya kuwaan kale abargidirta iyo xawaadlaha iyo koonfur galbeed iyo waxaas macawislayooda waardiyeys macawislayooda wax iskaga dhiciya haddana madaxweynuhu deegaankiisii maalin kasta waa la qabsanaya hubku rag buu u baahan yahay sooma hubku inta meel la dhigo miyuu waa iska dhaxaya waa maya la yaab waa xasan sheekh iyo ciidankiisa iyo reerkiisa nin askari muuqaal ka soo duuban argagixisadii ninkaasi intaan adduunka fulaya arkayay inna lillahi wa inna ilayhi sideed khasnadood baa saa ugu teedsan wuxuu wataa qori kuuriyaana buu gacanta ku haya halkaa qoriga qalkiisa inta qabtay oo bidixda ku qabtay buu midigtana wuxuu ku miisaamayaa xawaaraha socodkiisa saas u ordaya wiil hal khasno kaa wata oo qoriga waxa baabaas la daba taagan dharraq oo muxuu jiraa 30 tilaabo u jira waa ciidamada xasan sheekh loo tababaray wey ciidamada labada bilood ee loo soo tababaro abgaalka tababarka abgaal baa la yihahdaa taas u sujeensanaya baba u yimaadeen ma is arkeen hubin bayaan wuxuu inay al-shabaab yihiin inay yihiin haddii alla ku roo yahay qolyo reer miyiga inay yihiin la hubin mayo dhagax laba cagood cabdibilaha ka dheereeya markaasaa maalin alla keeno hubkii iyo rasaastii iyo waxaas loo qanimaysanay maxay laga dhaxlayaa markaas maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa cadiifadda iyo qabiilka iyo yaa qoriga ridi kara inaadan ninka u siinin ausay adeer noo hay ma hayn kara dee ma uu hayn karo xasan
waxaan leeyahay 10 ku noqon kolba 10 qaadan maysid tuug waxba kama qaata 10 dhalinyarada halkaa lagu xasuuqay ee halka guuta gaaraysa ee saraakiishoodii la laayay waa u tacsiinaya waxaan leeyahay ilaahay haydin xariisto tababar fiican inoo hoosiin qabiil baa qoriya laydinku dhiibay meel baa laydin fariisiyey fadhin weyde waa kaas saynta laydinku dhigay balaayaa saynta idinku dhigtay balaayadaa saynta idinku dhigtay ilaahay haydinka furdaamiyo halkaas aan dhigayaa ciidankaas dayacaas waa baaba'ay wax badan kama harin maca waxaad dareemi karnaa ciidan 3 sarkaal xukuntay 2 ka mid ah la dareemay weligii inta arkaynin adduunka fulinimada waa 10 nooc qofba asagoo baqay macnaha baqadir waxa la jira dib u gurash nin baa hadii la guuro yahay xeeladaysta laakiin warra waa xaalatul abgaal halka aad qori inta qalka la qabtay gacanta kalena socodka lagu miisaamayo 8 qasnood ku xiran tahay waa kaarta abgaal weli ma gaarin Soomaalida kale anoo kuma arag kaarta abgaal baa leeyahay halkaas ay ugu gudbay Cabduqaadir Boos ee gaarsiiyay kaarta abgaal Cabduqaadir Boos oo kaartada waagan waayahay qolaada aanu imaado mareexaan iyo dir nabad ma ku baaqaya ilaahay ka baqaan idin leeyahay madaxda kale celisa ma lihidin dowlad Soomaaliyeed ma jirto qolomo iyo adiyarka shuyuukh xaq idin sheegta ma lihidin oo idin tiraahda war ninkii nin walaalkiisa dila Soomaaliya dilo muslima dila naar buu galaya ma haysataa dhiigu waa xaraan sheekh in yiraahdo ma haysataa qolomadiyanu waxay ku mashquulsan yihiin sabiisha gabdhaha marka idin leeyahay sabiisha gabdhaha baad ogtiin qolomada dhan dhageysta maxaadrooyinka gabar isqaawisay naaskay banaysay naayaan ninka ilaahay baan kugu dhaashay hadda ninkan waa sheekh dhageyso sariirta ay ku umulayso sariirta ay ku umulayso iyadoo ku jiibta hadduu ninkeedu dhaho waan kuu baaray inay ka soo kacdo waa qolomadeena waa kuwa maalin la arkay maalin la saxan lagu soo dhaweynayay nin dhan oo sheekh oo waliba qabqariyo weyn oo qaan la yaqaan ka magac iska sheegi may oo dad soo istaagay leh weel yar iyo toobara baasaas loo soo dhaweynaya dadku dhageysanaya hada sheekhu dadka anu dantoodan kala hadlaa anu haddaan soo hadlo gabar fitoyaad kama hadlo sabiishaad kama hadlo sheekhow waxa aan arko hadday dhinaca wanaaggan ka markan waa ka mara haddaan xumaanta ka markan waa ka mara bal anigu xukuumadda dhexdeeda kulamo meeraysa sabiil iyo bahalkii wax iyaga anfacayaan kala hadlaa ama siyaasad ahaato ama wacyigelin ama haysaan hadda hal sheekhu hadlay oo 61 qof ama reexaan iyo ku kala dhimatay iyo dir ku kala dhimatay sheekh hadlay maartay sumcadii la soo dhaafay hayde wax muxaarada oo yara maartay sheekh leh adaabad gasheen waa maartay arkimaysa markuu hadlo gabadha sadeesheeda gabadha hadii la ku rooyahay ninkeeda xaq kama dhax gabadha ninkeeda dama dhax gabadha timaha qaawisa war culumadii ba ilaahay dabada naagu soo aruuriyay sheekhaas anigu wuxuu ku dhaliilay inaan qabiilo isku diro waxa qabiilada waan isku diro qana waan nabadayna qaan sheekhow laakiin adigu bal sabiisha ka soo dhamow sabiisha gabdhaha ka soo dhamow bal dadka wax taraya u sheeg intaas aan leeyahay ka soo gudub waxaan leeyahay marka mareexaan iyo dirow hal midig hooy caawo dhaxal gala 61 baa isla kiinimatay amaad ii sheegaysaan maanta intadad idin yimaado la heshiisiyo mareexaan guura oo bari dega diray guura oo dega meesha la yiraahdo banaadir ama la idin dhahayaa waa maya walaalaatihiin iscafiya 61 waa dhimatay birisoo kale boqol baad dilaysaan walaalaatihiin meesha wada deganaysaan waa isguursanaysaan waa isdhalaysaan ehel baad tihiin idinkaa isugu dhow umada ay shuudaan baad intiina dhimatay inta dhaawacaanay wallahi jahannaba sababtoo ah ilaahay halkaan fiir waa meesha gasiiradda xidlada laan dheer meesha la isku laayay waa halkaa wax dhex yaalla ma garanaysaa walaalayaal marka allihii ida abuurtay ilaahay qof kasta meeshaan wuxuu keenay inuu caabudee caabudaaddeena ka mid tahay inaa wanaag samayso ilaahay ka baqa oo dhiigga daadinay soo jiiyo hal kalena nimanka ilaa diriga gaarsiiyey hal kalena diriga gaarsiiyey dagaalka intaan ogahay ama anigu xoogaal baan ahay waxaa xog iga soo gaaraysaa dirtii halkaa iyo tawfiiq deganayd ee dabac iyo aagoon nimanka anagu wada deganayn
inay soo duuleen oo gurmad soo aadeen halkan maalinta wax ku dagaalamay dirta nimankaas islaayeen waa niman la yiraahdo dalal diini baa oo deegaanka Laandheer degan heer diiniga kala wada dagaal ma gelin wagax dhac dagaal ma gelin eli dagaal ma gelin heer siyaad xuseen dagaal ma gelin nabad bay ku baaqayaan dhalinyaro dirta ka soo duulaan tagaysa ama ka soo gurmanaysa meesha la yiraahdo tawfiiqow joojiyo colaada haddiise aad timaadaan oo aad cadaabkaas ilaahay ka baqi weydaan oo aad dhiig bini aadan raadisaan khayr lagama cuno timirna ma agtaaliyo xalwad intii maanta dhacday oo kala dhacaysa sidaasoo tahayna markii halkaa laga soo duulaan tago ali dagaalka waa gelaya reer siyaad xuseen dagaalka waa gelaya wagardhac waa gelaysa hadday sii ballaaratana reer duciyahana ulaalka sawcaan maxamudow ma halkaa waa isku furayin reerna waa calmaa cadaabka waa la wada aadaya markaas cadaabka waa ognahay soo maaha dagaalku dagaal jahanamo lagu gala yahay oo dagaal usqayq lahayn diray haddaad cadaabka noo go'aamisaa in la aado waa la wada aadaya anu tirana waa qana cadaabna waa qana labada wadana waa qana marka rag isxifaalaynayna rag markaa isqabanana rabbi ka baq iyo rag iska dhici soomaalida waxay tahay meel muuqda galaa nin raga ilaab garay colaadaasi marka horin uma baahna tolaaya uma baahna gurmad uma baahna dad walaalaa wada degan aan meelna kala aadayn la kala rarayn 500 hadday dhimato wada deganaanaya uma baahna gurmad iyo in laga soo gurmado tawfiiq haddiise tawfiiq laga soo gurmado taqriiban baa laga gurmanaya meesha la yiraahdo waxa laga gurmanayaa meesha gaalka ayaa laga gurmanaya saaxa laga gurmanaya ay untii aad tiri wanaag hala faraw waa ay keenaya kuwa tolkay ah ee mareexaan iyo kuwan kale diraadba inay wax ku qaataan qalbigooduna qoyo intaasan kaga gudbaya colaadaas colaad Soomaaliyeed maanta nama anfacayso kun sanaan ummadda ka dambeynaa Yurubiyaankan iyo dhalinyaradu ay fahmaysaaye kun iyo boqol markay taariikhda miilaadiga 1100 markay ahayd filimka laga jiray dhalinyarada abreedka way garanaysaa waa Viking filimka la yiraahdo ka soo bilaamaya nimankan ka soo bilaamaya meesha la yiraahdo Norway iyo Denmark iyo Scandinavia ka soo bilaamaya islaynaya qabiilada ee aan diinta haysan ee meel kasta ku duulay tabtiyo kaan maraynaa kun sanaan ummadda ka dambeeyay maanta 2024 Japan iyo China iyo 6G barnaamijka la yiraahdo baa loo tartamaya cid soo horsaari lahayd halka 61 qof Laandheer nooga dhimatay ayaan daro kun inta ku soo koobaya barnaamijkaas haddii la ku rooyahay dir iyo mareexaan isdaay ilaahay ka baqa haddii naar loo tartamayana qolo kasta dee qabiil kasta waa gatay intuu naarta ku aadi lahaa reer hebel hubbay leeyihiin reer hebel tiknikay leeyihiin reer hebel suubay gateen ma maqasho waa wadada naarta loo mara wey sababta waxaan hal samaynayaa bini aadan bay dilaysaa gaal dili mayso caddaan dili mayso Soomaali cadawga dili mayse waxay dishaan waa Soomaali waxa ka suug reer kasta haysta waxay dilaysaa waa baan marka reerahan daaroodkuna inta jahanabo lagu aado waa haystaan jahanabo inta lagu aado afarta dagaal ugu dhaafan taqaan afarta dagaal markay afarta ugu dhaafan taqaan wasu iyo shilke beekaan afarta qori waa afarta lagu dhaafto wallahi billahi tallahi baka dhiganta ka dagaal socod afarta lagu dhaafto way afartaas waa yaalaan deegaanka soo daarood marka diray awowayaan xagga iyo nololeehi aakhira nololeehi dagaalka tolka iyo ehelka wada shay damiya intaas aan leeyahay waaye qodobkayga saddexaad ku soo koobay barnaamij waxa weeye hada sheekh shirka uu soo aaday asagoo waxa soo meeydo ciidankii iyo shacabkii wadaadsan yihiin waxa la yiraahdaa Oslo forum baa leeyahay waa shir yaro beedhaayo agaasimayaal iyo madaxda rabta ee madaxweynaha Norway la kulantay waxyaalahaas ka yimaado agaasimayaal
haddii alla ku rooyahay wasiirre arrimo dibadeed haddii alla ku rooyahay ra'iisul bas ka yimaado xasan in iyo yaab noqotay annaga laba madaxweynaha meesha ka tagay sida la sheegay waa madaxweyne Tanzania iyo madaxweyne Soomaaliya kii Tanzania wakaa gabadhaas Tanzania madaxweyne waa si loo soo dhaweynay maarta saf ciidamo salaam ma la siinaya salaakiin madaxdii soo dhaweynaysa annagana madaarka Norway agaasimihiis Oslo madaarka Oslo Norway madaarka Oslo agaasimihiis soo dhaweynay sababtoo ah xurmaysan oo hayn inuu daciif liita yahay meydka iyo dhaawac toban daf ayuu soo orday xogta kale waxaan ku helayaa fariinta isgaarsiin xog muhiim ah insiinay asaga ujeedka u soo aaday meesha waxa weeye Kenya waa tan bad isku qabsanay badda aan isku qabsanay Kenya shidaal baa laga qoday waxaan ka qodayay kambaniga Norwegian ka qodayay Norway ka qodaysay shidaal Norway markii dacwadu bilaabatay shidaal qoysta waahida annagana waxaan loo xukumay boqolkiiba 90 badii la isku haystay ama shidaalka isku haystay annagana loo xukumay Soomaaliya toban baa u soo hadhay Kenya tobankii Norwegian waxa ku dhaxeen kharashka naga galaya meeshaan iyo kharashka naga qabtaan iyo tobankan in soo haray isma Kenya waa joojiyay ninka yaa Uhuru Kenya muxuu ahaa Uhuru yaa oranay ninka la yiraahdo isheeg ninkan Kenya madaxweynaha u ah William Ruto wuxuu sameeyay xasan buu u yeeray waa kii maanta fariinta ka qaaday Biden u geeyay hadii la ku rooyay Biden ku yiri niyahow ninkaas ciidanka Amazon iyo soo laabto Mareykanka hadii gal sidii daaraan baa loo qabsanaya maan loo buu yeeray safarkii ugu dambeeyay hadeer Nairobi waxa laga dhigayso intaas ma ku qabto Mareykan baan ku soo xiriiray oo ku shukaamiyay xagarta waxaan ka rabaa Norwegianka u tag shidaalka boqolkiiba 10 waa nagu filan waaye nagu dar xooga nagu dar oo Norwegianka u saxiix in baddaada qaybta lagu xukumay shidaalka ma ka qaadi ma ka saari wallahi billah xogtaas ma helaysaa dhacno hadda wuxuu ku saxiixayaa Oslo Forum in Kenya shidaalka loo baaro qaybtan kale oo boqolkiiba 90 loo xukumay qayb ka mid ah oo looga baaro loo saaro shidaal oo xukumaya ninka la yiraahdo bahalkiiba William Ruto baan ku cadaadiyay si kale Mareykanka waxaan dhahayaa biyiri Mareykanka adigu astagaashan Turkiga la xirtay ciidankaaga iyo xaga dhagooso Amazon waa raraynaa adigana sidii Daaliban baa lagu qabsanayaa Axmed Madoobane abunbuunayna haddii kale hadda waliba shiriiska ugu weyn waxa weeye Axmed Madoobane ana ku qabataynaya meesha kaaga tuuraya qabsa oo kaysatid adiguna shidaalkaas isoo form garay intaas meesha ku tagay xogta waa iga haysaan waa Xasan Ayax waa ninka dalkiisii oo dhan oo meydkii dhaawac u yaalo maanta Oslo agaasimaha madaarka soo dhaweeyay ilaahayow noomada ceeb asturin ilaahayow noomada ceeb asturin 2018 farmaajo Oslo Norway lagu casumay si ma iman karo kaasa waliba waxa tilooyi waxa leeyahay xoghayihi gudo qaramada midoobay baa imaanaya kaas wuxuu u diray khayr aan shirka noocaas ma tagay Oslo Forum ma tagay shir weyn oo liyaa caalamkaas uu imaanaya meel aan ahayn ag masaaru kana xataa wallahi xabsa oo galay أنا معنا في القواك هذا ما يقصد لا درويش بقى هاي وقتي كوهاي ماشي هذا مريك هذا السلام يا إنت وسكويا برنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشاو